waxa weeye horta waxaan baaq ugu dirayaa kow al-shabaab al-shabaab waxaanaad wadeen wax khaldan bay ahaayeen ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ugu jecel yahay baa la yidhi qofkii toobad keeno qofku khalad kasta uu galo cafwiga ilaahay baa ka sii weyn oo ka ballaaran wey marka cafigaas ilaahay subxaanahu watacaala baa idiin furan al-shabaab iyo daacish oo labaduba dalkeenna qaybo ka mida ay ku jiraan waxaan leeyahay iskaga soo baxa waxa aad ku jirtaan wax wanaagsan ma aha wax diin ay qabta ma aha wax wadaniyad iyo dawladnimo ay qabta ma aha wax hadda ummad loogu danaynayo midna ma aha marka waxaan leeyahay ugu baaqayaa iskaga soo baxa dan idiinma hayaan kuwa argagixisada ah oo adduunka wantedka ka ah oo la raadinayo oo lacagaha la dul dhigay oo waxa weeye iyagu jariimo ka galay wadankoodii oo dadkoodii dilaayay oo adduunkiina fikirkii khaldana ku talaalaya la raadinayo iyana idinku maxaabsanina iskaga soo taga ka soo waxa weeye wareega dawladda Soomaaliya waxay idinku tala gashay xarumo la idinku dhaqan celiyo oo diintii la idinku barayo oo dawladnimadii la idinku barayo oo xataa haddii ay dawladda Soomaaliya shaqo idin siin weydo oo ay idin siin weydo goobo aad naftiina ku maareysaan oo ilmihiina ku korsataan waxa weeye shaqadiina idinka shaqaysanaysaan waayo ninka duurka ku jira oo maanta isku soo maleegaya dhagar muwaadinkii Soomaaliga ahaa oo dalkiisa iyo dadkiisa u difaacay inuu dilo inuu kii muwaadinka shaqaalaha dawladda ha dilo oo u maleegaya dhagar wax faa'iido ka helaysa ma jirto adigana maalmaha kamida waa lagu dil ama waa lagu qaban laakiin intuna waqtiga kugu dhamaanay waxaan leeyahay oo baaq u jeedinay iskaga soo baxa waxa way intii hore ka soo baxday maanta wanaag bay ku nool yihiin sharaf bay ku nool yihiin dadkooda dhinac ka raacay dawladda xitaa hadayna shaqo siinin magaaladooda ka shaqaysanayaan wadankooda dhinac ka gelayaan dadkooda la shaqaysanayaan marka waxaan baaq u dirayaa oo leeyahay dadka al-shabaabka ku jira kuwa daacish ku jira kuwa kale afkaaraha xaq jirka aaminsan kulligood waxaan leeyahay iskaga soo baxa wadankiina iyo dawladdiina iyo dadkiina ku soo dhaxlaabta ku soo noqda iyaga ayaa wanaag iyo khayr baad ka dhaxelaysaan haddaad sidaa rabtaan aad ka weydaan waxa weeye waxaad ka helaysaan bulshadiina Soomaaliyeed baa dhinaca ka raacaysaan waxaan leeyahay iskaga soo baxa afkaarta xaq jirnimada dhibka ay idin geysatay idinka laftiina og oo ka warqabtaan cabsida iyo walwalka aad ku nooshiin ayaa waxa weeye idinku filan waana iyo wacdi laakiin waxaan idin leeyahay iskaga soo baxa iskana soo laabto